بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan dhamaantii meel kasta joogtaan isu soo noqod wanaagsan muddo ayaan ismoo galin oo is arag mar kale ayaa idin leeyahay soo dhawaada waxaan rajeynayaa insha Allah bidnillah karim inaanu wax badan halkan ku kala faa'iideysan doono oo aniguna wax badan idin ka faa'iidi doono aniguna inta yar ilaahay haduu qadaro aan hayo aan idin ka faa'iidin doono insha Allah bidnillah karim waxaan jeclaystay inaanu idin la wadaago muuqaal aad u kooban oo aan aniga idinkuba faa'iido badan buu inoo leeyahay waxaan sidaa u iri waxaan arkay oo dareemay markaan asxaabta iyo dhalinyarada aan wada sheekaysan waxa aragnaa qof walba inuu fikirayo qof walba wuxuu la daalacayaa maskaxdiisa yareed qof walba uu fikirayaa waxba ka dhex guuxayo wuxuu jecel yahay inuu wixii uu ka salgaaro oo uu ka dhabeeyo himilooyinka iyaga ee qof kasta isaga u muuqda maskaxdiisii iyo isaga kaliya ku dhex jiray aan cid kale la ogeyn waa muhiim horta qofku inuu runtii uu arintaas ka dhabeeyo laakiin waxa caqabad ka taagan tahay inteena badan markaynu is sheekaysano ee is ogaano qofka kale waxa ka dhex guuxayo oo ogaado waynu isu sheegnaa deedna halkii baynu uga tagnaa isma dhiirigelino oo runtii isma baraarujino oo hadii la heli lahaa in la isbaraarujiyo oo la isdhiirigeliyo ugu yaraan waxa dhici lahayd midkeen inuu runtii ka dhabeyn lahaa fikirkiisii oo gaari lahaa himiladiisii bulshadeena ayaa inta badan sida u samaysan oo de markaan sida leeyahay igama aha inaan dhaliilayo bulshadeena igama aha inaan ceebeynayo balse waa dabeecado waxa jira oo guud oo dadku ay leeyihiin oo de marka la sheekaysto oo wax la soo sheego waxa weyn hadalnaa wax badan baynu soo sheegnaa laakiin hadii la isdhiiri gelin lahaa oo wixii inuu soo wada sheegi lahayn qof walba waxa yaraan lahayd runtii ficilkan oo badnan lahaa hadalkan oo yaraan lahaa hadii uu hadalku bato wax qabadka yaraanaya sida guudna waa sidaas waatay Soomaalida hal ku dhigay oran jirtay hadal yar iyo hawl badan waxay ku tusaysaa hadalka marka uu yaraado inuu qofku ku mashquulo wax kale laakiin markuu hadalka bato macnaha waxa weey wax kale oo lagu mashquulan jirin taa la ajligeed ba waxay keenaysaa in dhiirigelintii iyo wax isu sheegi iyo runtii qofkii in la jiheeyo oo dariiq wanaagsan la tuso oo wax badan loo sheego midba qofku waxa ku dhaamo ka kale oo u sheegi lahaa waxa la heli lahaa in qof walba maskaxdiisa fikirkiisa uu noqdo mid guuleysta hadaba waxaan isweydiiyay sidee baynu ku heli kareena oo ku guul uga gaari kareena waxa maskaxdeena ka buuxa iyo himilooyinkeena sideen ku gaari lahayn uga dhabeyn lahayn oo in ficil ugu bedeli lahayn waxa ay soo baxday hadaba in ay muhiim tahay inuu qofka qorshe la yimaado hadii aynu weynay macnaha aynu isdhiiri gelin weynay dhamaantii yani badankeeni intii yar isdhiiri gelisana ay soo koobantay dadkiina yani inta fikirayeen maskaxdooda iyo wada buuxdo wala ma huraan qofka isagu laftiisa inuu fikirkiisa uu wax iska weydiiyo uu raadinayo wad fikirta waxan bad ku fikirta guul baa doonaysa inaad samayso waxa doonaysa inaad wax barato waxa doonaysa inaad shaqadaada iyo horumar aad ka gaadho waxa doonaysa inaad hawlo kale iyo qorshayaal kale aad samayso waxa doonaysa inaad guursato aad iska bulnimada ka baxdo waxa doonaysa inaad wax qabad muuqda oo noloshaada ay ku qanacdo oo indhahaaga aad ku aragto inaad samayso wala ma horaan hadaba inaad adigu isla xisaabtanto aad tiraahdo okay sidee waxaan ku sameyn karayaa way fududahay marka maskaxdaadu ay si degan oo caafimaad qabtay u fikirto aad bay u fududahay in arrimahaas oo aad ka jawaabto sida ugu dhow ugu wanaagsan igula munaasibsan aniga ayaa waxay tahay inaad qorshayaashaada nolosha aad ku dabaqdo waqtigaaga qorshahaaga waqtigu sidoo yahay sidee baad uga faa'iideysataa sidee baad u maareysaa ka mujtamac Soomaali ahaan dad islaamiyeen nahay qorshaheenu maalinimeed wuxuu soo bilaabataa salaad subax marka la tukado marka salaad subax la tukado ayuu qorshaheenu maalinlaha soo bilowdaa si guud markaynu isugu sheegno waqtigu isma bedelayo waqtigu waa unkii inuu shalay haysanay hadii ilaahayna deynayna baritaan inuu heli doono insha Allah inuu sidoo ku sii socon doono waa 24 saacadood waa 24 saacadood in shalay sideen ugu isticmaali jirnay aynu doonayno inaynu maanta wax ka bedelno
يعني waqtigu isagu isbedeli maayo haddii aynan isaga aynan annaga isticmaalin oo aynan ka faa'iideysanna dabcan isaga ayna dilaya oo waqtigii dee wayna dhaafaya oo wuu inaga gudbaya oo kullama waqtiga gudbana dee cibrigaagii baa sii socda awooddaadii baa sii yaraanaysa laga yaabay hadda maanta waa caafimaad qabnaa berti in xanuuna iska yimaadaan ilaahay ma qadaray waana arimihii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka dardaarmay markii uu lahaa shan ka faa'iideysa inta shan kugu dhicin oo shan kugu iman waxaa ka mid ahaa waqtiga haddaba waqtigan baan jeclaystay inaan ku dabaqo aan runtii ku lamaaniyo qaab fikirkeeni waxa naga guuxayo sideen uga salgaari lahayn aan uga dhigi lahayn kuwa guuleysta waxaan idhi waa muhiim in qorshe la yimaado waxaan idhi oo aan soo sheegay in qorshihii hore ee waqtigaaga inaad wax ka bedesho kuwaas ayaa waxay suuro gelin karayaan in guulahaaga iyo mustaqbalkaaga aad u jihaysid sida aad u doonaysay sida aad u doonaynay dhammaanteedba inay noo noqdaan sidii aanu runtii ku najixi lahayn oo himilooyinkayga aynu ku gaari lahayn aynu ku guulaysan lahayn qof walba guusha sibuu u arkaa balse dee waa muhiim in runtii la isla fahmo qof walba ajandihii uu dejisnaa in uu helay oo uu gaadhay oo yiri waan gaadhay maanta inkastoo nolosha iyo baahideedaba aysan dhammaanba haddaba waqtigu waa waxa ugu wanaagsan uguna muhiimsan ee qofka bedeli karaya iyo qofku uu macnaha uga faa'iideysan karay sida wanaagsan oo qofku u suura gelin karay wax walba isagu doonayay haddii waxbarasho qofka doonayay waxa uu suura gelin karay inuu waqtigiisa uu isagu qorsheysto haddii uu shaqo jirto inuu qofka shaqadiisa uu qorsheysto waxay ka soo bilaabanaysaa xilliga salaad subax baynu niri xilliga marka aad tukatid waxa ku yaalay nolol maalmeedkaagii iyo hawshaadii maalinimo waxa muhiim ah inaad qorsheysatid oo qoratid maxaa halka marka la joogo ka bilaabanaya dad badan oo wanaagsan baa jira oo markay salaada jamaca ku tukadaan halka ka biloway yiraahdaa maalinkii waa inaad juz quraan akhriya maalin walba juz quraan markaad akhrido oo aad doonayso hadafkaagu ah inaad quraanka khatinto bil walba hal mar dee macnaha waxa weeye 30 casho 30 juz baad dhameys haddaad doonayso inaad macnaha xifdisidna iyaduna waxaad la iman kartaa qorshe ah intee baad maalintii xifdin karaysaa maalinkii intaad xifdisid saacadahaagii adigu yacnihii markaad u qorshaysatid kadibna isbuucii eg intee gaari karaysaa isbuucii kadibna bishii waxaa kuu soo baxaysa intee juz baad xifdin karaysaa bishii haddii aad iskuul dhigatid oo aad iskuulkaaga doonaysay inaad macnaha aad waqtigii dedejiso waxaad ogaan karaysaa haddii aad hal saac kalaaska geli jirtay oo maalinkii 2 saacadood ka dhigto ama 3 saacadood waqtigaagii waxaad uga faa'iideysatay sidii ugu wanaagsaneyd waxaan uga gol leeyahay waxa muhiim ah in waqtigu iyo qorshayaashaada iyo waxa aad ku fikiraysay inaad noqotid inaad isugu dheelitirtid sida ugu habboon waayo waqtigeenu uu badan yahay wax qabadkiina uu yar yahay dadkiina waa wada mashquul xataa waxaan arkay haddii aadan maalinka waxba qaban oo aad iska soo taagantahay waxaad dareemaysaa inay maskaxdaada mashquulta wadciga xaaladda lagu jirana way sii suura gelisay inuu qofkii sii mashquulo waayo aaladahan casriga iyo social media han markaan ku jirto 2 saacadood 3 saacadood waqtigii sidoo isagu orday wadiyaabaysa ugu dambeyn fiidkii markaad gaadho waxaad dareemaysaa aad isla xisaabtanto maxaad maanta ku qabsanay jawaabtii ku soo baxaysa waxba jawaabtu ugu fudud ee soo baxaysa waxa weeye waa waxba maad qaban maxamed qabsan waxna kuma hormarin haddaba waxa muhiim ah oo xusid mudan in runtii inuga faa'iideysan waqtigeena sida ugu wanaagsan uguna quruxda badan leh taas ayaa inagu hagi karaysa meesha aan doonayno taa ayaa ina gaarsiin karnaa hadafka aynu doonayno taa ayaa runtii noo rumayn karaysa himilooyinkayga inay noqdaan kuwa gaadhay meeshii loogu talagalay waan ognahay ma bedeli karayno waaqiciga xaaladda waqtiga kamida يعني runtii ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo uu qorsheeyay xaaladiisa kamida laakiin nafteenu waxaanu u bedeli kareynaa sidii aynu doonayno inagu ee ugu wanaagsan waxaanu mar walba ka hadlaynaa dhanka wanaagsan ee samaha ah ee qofku u jihayn karaya adduunkiisa iyo aakhiradiisa inuu uga faa'iideystay sidii ugu wanaagsaneed ee ugu habooneed waxa daba muhiim ah
ina marka qorshayaashaadi markaad dejisatid oo waqtigaagii aad ku dheelitirtid sida loogu habooneed ee adigu markaad isqiimeyso isqiyaasid ugu wanaagsaneed waxa muhiim ah inaad isla xisaabtanto maalinka shaqadaadii ma qabatay haddii aad shaqo aadaysay shaqadaadii ma aaday si loogu talay qabsatay maxaa ku xigay shaqadaadii maxaa kale ku sii xigay yacni maalinkii adiga qorshayaashii ajandihii ku yaalay si loogu talagalay ma qabsatay habeenkii markaad gaadhay inaad isku xisaabtami karaysid maanta maxaa qabatay ma ku qabsoomay wixii aad rabtay oo dhan si loogu talagalay ma qabsatay halka markay wax walba ku noqdaan ha waan qabtay dabcan waxaanu dareemaynaa inaynu giishii iyo himiladii aynu meel fog ka doonaynay in runtii aynu arkayno ifafaalaheedii in ilayskeedii uu durbo uu noo muuqanayo waayo maalinkaa sidii loogu talagalay shaqadaada markaad u qabsato cibaadadaada sidii loogu talagalay markaad u gudato waajibaadkeeda sidii loogu talagalay markaad uga soo baxdo waxaa kuu soo baxaysa inaad tahay qof u jihaysan meeshii uu rabo dhammaanteen waynu doonaynaa inaynu jiho wanaagsan qaadno oo adduunkan aynu ku bararno aakhirana runtii aynu helno sabab wanaagsan soo ma marka taasa waxay inoo suuragelinaysaa inaynu ajandayaasheeda sidaynu u samaysanay aynu u raacno iskuna la xisaabtano haddii qofku heli karo saaxiib wanaagsan oo sidaas dhaqankaasi hore u yaqaanay oo kale in qofkaasi oo kale aad la saaxiibi karto oo runtii aad ka faa'iideysan karto su'aalo badan aad ka weydiin kartid sidee waxyaalaha qaar ay ugu suuragaleen hadduu qof hadda kula mid oo runtii dariiqii hadda ku socdo uu yahay iyo himiladiisii uu hadda higsanayana inaad runtii aad kula jaan qaadi kartid oo kaga dayan karaysid waxyaalaha wanaagsan uu sameynayo ugu dambeyntii waxaa muhiim ah aan doonayaa inaan baraarujiyo adduunkan waxayna loo keenay oo ilaahay uu noogu abuuray inaynu runtii isaguna aynu ku caabudno wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inaynu caabudno howlahayaga iyo nolosheena maalmeedkayga inaan si loogu talagalay uga soo baxno inuu qof walba waajibkiisii nololeed ee aadam loogu talagalay inuu uga soo baxo abwaankii weynaa darwiishkii Ismaaciil Mire markuu ka hadlayay wiilkiisii uu la dardaarmayay fadhiidka ahaa ee wax qabadka xumaaya himilooyinkiisii iyo yoolashana aan u diyaarsanayn waa tuulaha cali oo xusuus kugu dilee walad xumaadaaye xalay baxaadaas gabay la kacay oo xifiltamay dhaqashada xaalaysanay maqal xuruftooda halkii ugu dambeysay gabagabeedii ay waatu soo xiray uu yiri kugu xiiqay sidaan ku lahaa xaaxiyahay toose xaq un labada daarood ku daran ha isxakamin meele aad baad u mahadsantiin insha Allah waxaan rajeynayaa kulamo dambe iyo muuqaalo dambe inaan halkan ku kala faa'iideysan doono waa anigu Cabdullaahi Aadan Kanaacidle aad baad u mahadsantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi